now waxaynu imanaynaa markaasi laabkeeni koowaad waxaa loo yaqaano router initial configuration bilowga configurationka ugu horeeya ee la samaynayo inuu practically ku samaynayna casharkeenan waxaa laynaga rabaa 4 qodob inaan kasoo baxno waxaan design garaynaynaa topologies ina tusaya ka hoos oo kale kanoo kala design garaysanaysaa kow marka labaad waxaad samaynaysaa inaad userkiisa magaciyada routerka aad bedeshid marka koowaad labaad waxaan u jeedaa inaad IP address u assign garaysid marka saddexaad inaad magaca ka bedeshid iyo inaad configurationka save garaysatid iyo qodobka ugu dambeeyo xaggan hoose inoo yaalo oo make sure that interfaces should be up waxay kala yihiin toore waa physically up protocolly up saasay u kala duwan yihiin kabacdina topology-gan oo kala samaynayna now waxaan soo kicinaynaa routerka maxaa loo yaqaanaa GNS3-gani waxaan tegaynaa markaasi file haddaad tegtid qaarkood u yeedhi kartaa halkan aan odhanayaa markaasi new project waxaan odhanaynaa markaasi training 1 baan bixinaynaa training router training aan dhahdo router training already kan waa jiray la bas waxaan bixinaynaa markaasi training 1 for example any name xagana tagayna markaa routerradeeni waa kuwan xibad router aan soo qaadanaynaa drag and drop waad soo qaadaysaa waad dhigaysaa kalaadna soo qaadaysaa waad dhigaysaa okay labadoodii waa kuwan labadeeni router saa u wada highlight garay hal mar meesha doontid geyso haddaad doontid saa intaad u highlight garaysid baad right click siinaysaa deetana waxaad odhanaysaa alignment horizontal isku beeg halkan aad imanaysaa cableadaan soo qaadanaynaa okay hoos yara deg okay switchkaan rabnaa inaan cableinkii soo qaadano cabledii hoos bay iga jiraan waxaan sameynaynaa kanaan yaraynaynaa maykani maapka iga yaraanaya okay kan hoos buu iga yara jiraa cabelkii waa kan cabelkii waa kan hoos buu iga jiraa waa kan soo qaad right click c ma serial baad iskugu xidhaysaa mise fast internet inagu fast internet aan iskugu xidhno kan kalena fast internet waa kaa laakiin ma daarna labadoodiiba wada daar saasay noogu daaran yihiin saasay noogu daaran yihiin okay serial cablekii aan ka sheekeynaynay away serial cablekan ka sheekeynaynay haddaan routerka markaan haysano PC baan soo qaadanaynaa PC-ga markaan soo qaadano hoos igu soo yara deg PC-ga aan soo qaadanaynaa this is the PC for instant PC-gana soo qaadanaynaa hadda laakiin initial configuration baan sameynaynaa marka computerka serial physically baan iskugu xidhanaa laakiin kan waa inagoo lab isticmaalayna kabacdi double click baan siinayaa kan wuu soo kacayaa kana double click baan isagana siinayaa router 1 waa soo kacay kana double click baan isagana siinayaa isna wuu soo kacayaa inta ay soo kacayaan IP addressyada halkan aan ku label garaysanayaa waxaan odhanayaa waxaan tegay node-kayga add node halkan aan ku dhuftay click deetana waxaan leeyahay 192.168.1/24 oo subnet maskiisu yahay 24 taa macnaheedu waxa weeyaan router 1kayga halkaa 1ka ah halkaa 0ga ayaan .1 u dambaysiinayaa xaggan kalena interfacekan kalena waxaan u dambaysiinayaa .2 intaa waysta fahmi karnaa kabacdina kan gal soo way diyaarsanaa mar horeba kan labaad iga xidh labaad bii furay kanaan imanaynaa deetana waxaan leenahay enter hadda waxaan joognaa user mode haddaan idhaahno show run halkaa kan idhaahno basic configuration kan arkaynaa hadda laakiin run inaga dhaaf aan idhaahno config terminal global configuration mode-kii baan tegey global configuration mode-ka magacaan ka bedelayaa waxaan leeyahay host name host
host name deetana waxaan u bixinayaa router 1 magaciisaan arkayno wuxuu isku bedelay router 1 deetana waxaan leenahay config terminal waynu nidhi interface baan leenahay fast internet 0/0 saasaynu odhanaynaa sub interface bay noo samaysmay halkan waxaynu ka siinaynaa IP address 192.168.1 halkani waa maxay maxaa u dambeeya .1 subnet maska marka la raaciya 255.255.255.0 inter baan leeyahay markaas interfacekii sidaa ab iguma aha waa inaan idhaahdaa no shut down dabeetana exit haddaan idhaahda hal mar baan dib usoo noqonaya exit haddaan idhaahda mar labaad baan dib usoo noqonaya laakiin end haddaan idhaahdo isagana mar keliya wada noqonaya ka dambaan end oo dhan kan ii kaale haddana kana isagana saasi lamida config terminal baan ka bilaabay maxaa ku xiga host name maxaan u bixinayaa router 2 magacan sare muxuu isku bedeli leeyahay magacan ma bedelmo adiga click baad halkan ka siin kartaa magaca laakiin halkan gudaha kama bedeli kartid oo magacii aad bedeshay soo ma soo baxay markaad isaga gudaha u gashid uunba ku muuqanaya ka bacdina waxaan leenahay interface fast internet 0/0 then IP address 192 aye 168.1.2.255.255.255.0 ayaan leenahay sidaa ma ku shaqaynayaa maya weli kuma shaqaynayo waxaan leenahay markaa no shut down ayaan odhanaynaa hadda end baan idhi halkeen markiiba ku booday waxaan ku booday user modekii deetana waxaan leenahay show IP interface brief waa commandka lagu eego xogteena lagu fiirinayo waxaa la yidhahdaa ha ka warwarin documentku inoogu dhex jira show IP interface brief deetana IP addresskeena waxaan arkaynaa in 192.168.1.2 uu yahay xaggan physically up inuu yahay protocolisna inuu yahay up inuu yahay okay ma biin garayn karaa saaxiibkayga kale dhinaciga xiga haddaan isagana idhaahdo show IP interface brief isagana haddaan idhaahdo isaguna waa 1.1 ma biin garayn karaa oo inuu soo jawaabayo in kale ma eegi karaa haa waa inaan idhaahdaa bing 192.168.1.2 deetana waxaan arkaynaa inaanu soo jawaabin markii koowaad markii labaad soo jawaabay markii 5 jeer ayuu la biingareeyay taa macnaheedu waxa weeye 5tii jeer 4 ayuu soo jawaabay markii horreysay muxuu jawaabi waayay waa iska common inuu soo jawaabi waayo laakiin marka dambe waa 5/5 5/5 waxa weeyaan 5 jeer baan la hadlay 5 jeer bii soo jawaabay halkan waxaa jira rounding trip mean average iyo maximum baa halkan kala jira macnaheedu waxa weeyaan rounding tripki waxa weeyaan xogteenu how many times celcelis ahaan mise socotay marka meankii xisaabtaad ku taqaanay waa 24 average waa 28 maximumna waa 36 waa timekii yani waa waqtigii ku qaadatay marka 5 times ayaa la diray lala hadlay 5 timeskiiba wuu soo jawaabay sidaasi kani waa real routerku la mid yahay routerada saxda ah sidani ayay iyaguna inoogu shaqeeyaan markaasi sidaasi haddaba waxaa laynaga rabaa qodobkii ugu dambeeyey ee ah xogteena inaan save garayno laba hab waan ku save garayn karnaa anigoo halkan jooga inaan idhaahdo right inaan idhaahdo deetana uu yidhaahdo override the previous non volatile ramkii inaan xogtii ku jirta override gareeyo yes bay dooran yes baa default igu dooran okay markaan sameeyo wii save gareynay imika haddaan restart gareyn dib usoo kixiyo device-ki waa sidiisi okay kana sidaasi lamid ah commandka labaad in ku save garayn karno waxa weeyaan inaan idhaahno copy running config configurationka igu jira running configga waxaad igu dirtaa start config ta igu jirta memoryga sidii oo kale weeyaan ta igu jirta memoryga waxaad igu save garaysaa hard diskiga computerka saas oo kale marka ramku sidiisaba wuxuu hayaa xog temporary hard diskiguna wuxuu hayaa xog permanent typically waa sidii oo kale wabillahi tawfiiq